بسم الله maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wuxuu waraaqaha aqoonsiga ka gudoomiyay safiirka cusub ee dowladda Mareykanka u soo magacaaday waddanka Soomaaliya Ambassador Yamamoto wafdiga la socday safiirka iyo madaxweynahana wada hadal ayay yeesheen fara badan oo ay ka wada hadleen xiriirka taariikhiga ee ka dhaxeeya labada waddan Soomaaliya iyo Ameerika iyo Soomaaliya bariisamaadkii sidii la soo ahaan jiray kadib dowladda Mareykankana waxay cabirtay muhiimadda ay u leedahay inay xiriirka Soomaaliya soo celiso ay u soo magacaaday ambassador aad u yaqaana regionkan muddo dheerna ka soo shaqeeyay oo hoygiisana uu ahaan doono xamar waxaa kaloo la socday safiirka madaxa hay'adda USAID oo hay'adda kaalmada ee dowladda Mareykanka oo asagana markii ugu horeysay 30 sano xamar u noqon doona saldhig si loo dardargeliyo mashaariicda ay rabto dowladda Mareykanka inay ka fuliso waddanka Soomaaliya sidaad ogtihiinba dowladda Mareykanka waxay qayb ka qaadataa sugidda amniga waddanka naga taageerta xagga amniga waxay kaloo dowladda siisaa taageero dhaqaale iyo taageero mashaariic la fulin doono oo ay ka mid tahay xagga waxbarashada xagga dowlad wanaagga doorashooyinka iyo in la abuuro shaqooyin loo abuuro dhalinyarada waxaasoo dhan loogu talagalay waxay kale bogaadiyeen horumarka Soomaaliya ay ka samaysay xagga nabadda gobolka Geeska Afrika siyaasadda arrimaha dibadda dib u soo noqoshada dowladnimada Soomaaliya iyo horusocodka weyn oo lagu talagalay dhinaca dhaqaalaha aan ka samaynay iyo kabashada deyn cafiska aan ku soconno iyo in Soomaaliya ay hadda la dagaalanka ay muujisay xagga arrimaha musuqmaasuqa iyo dowlad wanaagga Soomaaliya ay samaysay safiirka iyo wafdiga la socday waxay aad u bogaadiyeen Soomaaliya doorka ay ka ciyaarayso isu soo dhawaanshaha iyo isu furnaanshaha dhaqaalaha ee gobolka nabadeynta gobolka xiriirka Eritrea iyo Ethiopia xiriirka Eritrea iyo Djibouti iyo doorka Soomaaliya ay ka ciyaartay iyo inay Soomaaliya taagan tahay booska ugu fiican ama meesha ugu fiican si looga faa'iideysto daruurta cusub ee ka cawratay Geeska Afrika